horta gartu dhinac qura kama noqoto dhaqanka Soomaalida iyo sharciyada caalamiga ah ee bini'aadmigu ay ku dhaqmaan anigu hadda imika gar aan anigu xeer ilaaliye ka ahay CID police baadhisana ka ahay gudoomiyihii maxkamadda maxaan ku dhahdayay xukumayana aan ka ahay kaliya jeedin maayo ayaguna jeedin maayaan mid noocaas inta aanu isla ognahayna waa inta shirka qabanqaabada ee xisbiga kulmiye masalan waxa kamida madaxweyne Axmed Siilaayo eedeyntiisa ayaga shalita wasiirro u ahaa goorma Axmed Siilaayo maxaan ku dhahdayay uu noqday nin iyagana diidan maxaan ku dhahdayay musabixina doonaya Axmed Siilaayo aniga wasiiriga ma dhigin ayagu wasiirka ka dhigay iyagu ku shaqada ka tagayba xisbigana igagamay shaqo badnayn halgankiina igagamay shaqo badnayn raalina waxaan ku haynay iyagu wasiir ahaayeen aniguna aan baaga muddo aan suuqiga iska joogay arinta iyo siyaasadda iyo maxaan ku dhahdayay curfiga siyaasaddu ma aha maalinba inta adiga ku gadmaysa iyo inta adiga ku adeegaysa iyo inta aad adigu awrkaaga ku kacsanayso in aad ku samaysana maxaan ku dhahdayay maaha Axmed Siilaayo shalay la tartamay nin Axmed Siilaayo isma lahayn daahir riyaala ka helay maxaan ku dhahdayay doorashadii oday qarjajaasa soo halgamay xilal badan soo hayay kan waa laga helay de muu dhimanin Axmed Siilaayo waa ka noole samirkiisa ku sugay inuu madaxweyne noqdo Siilaayo de muu dhimanin arinta markaa imika taala waxa weeye xisbigana ina biixi looguma shaqeeyo Axmed Siilaayo ma aaminsana inuu ina biixi u shaqeynayo arinta ka dhalatay xubnihii wasiirada ahaa ee ka tagay xukuumadda haddii ay ka dhalatay maxaan ku dhahdayay Axmed Siilaayo dagaalkiisa iyo iyagu kaas iyagu dhaxayay waxa la rabaa in proof la keeno annaku halkan dadaanu soo ururinaynaana ma jirto dadina bixuu sacabeynayana meesha tagi maayo maba laga yaabaa iyagu farsamooyinka noocaas ah ay wadaan dadaanu inay bixibe heli lahayn inay iyagu raacinayaan marka la yiraahdo xisbigu inuu bixuu shaqeeya marka madaxweynuhu inuu bixuu shaqeynaya marka la yiraahdo annagu inuu bixaanu shaqeynayna annagu inuu bixi xilkiisii baan ka qaaday xilkiisii ayaanina bixi ka qaaday sababtaan ina bixi uga qaadayna waxay ahayd qolada dhinaca kala ah kalsooniyaha ka timaado iyo environment maxaan ku dhahdayay jawi lagu wada shaqeyn karo ina bixi xeerkana dad siinaya inuu maxaan ku dhahdayay gudoomiye noqdo shirka qaban qaabinaya arinta markaa waxaan leeyahay siyaasiyan waa la isqabtaa fikrada siyaasiga waa lagu kala duwanaadaa fikrada siyaasiga waa lagu kala duwanaadaa masalan marka aad joogto nin Falastiini ah oo jabhada la yiraahdo jabhad dimuqraadiya Itoobiya wakiil uga ahaa ayaa wuxuu aad u jeclaa SNMT oo xubno yaala badan buu naga gacan siin jiray berigii damaanu ku niri maxaa ku wada shaqeysan wuxuu waxaanu ku wada shaqeynaa anigu waxaan jabhad dimuqraadiya waxaan ay ku shuuciga fog jabhada shacbiya waa bahashi waa shuuciku فتح محنكو دهداي وهانتي غوسيو وسترن ستايل اورجانيزيشن قاروا اسلام متطرف فوق قاروا فلسطيني كريستيان وحدين تيدا waxaa naga dhaxaysa program la yiraahdo PLO Palestine Liberation Organization oo qora ururka xoreynta Falastiin baa naga dhaxeeya qolada saaxiibadayada uma kala fogin kristaanka iyo muslimka iyo shuuciga reer Falastiin waxaanu nahay niman reer Somaliland oo urur wada leh ururadana waa lagu kala fikir duwanaada garaba kala duwan buu yeeshay ideologies kala jaada baa lagu kala sheega samad garanin oo maxaan ku dhahdayay ururada iyo xisbiyada siyaasiga ee adduunyada ka dhisan qaar baa la yiraahdaa waa lefties waa qolada hanti wadaag iyo dhinaca maxaan ku dhahdaa bidixda u janjeedha qaar baa lagu dhahdaa waa conservative midigta u janjeedhan mabaadi siyaasiga oo aanu hadda isku haynaa ma jirto laakiin halka ay
arrintu taagan tahay waxa weeye waxaan islahayn 215 baanu haysanaa dee 215 koodun baabaan u maamuli lahay shirka u geyn lahayo dabadeedna musharaxa guuleystaba iyagu noqon lahaayeen baroortu waxa loo jiray baroortu orgiga ka weyn nuxurka meesha ku jira iyo arrinta meesha ku jira waxay u baahan tahay in hoos loogu daadago aad iyo aad baa u mahadsantahay